mas-uuliyiinta maamulka degmada Burco iyo madaxda booliska gobolka Togdheer ayaa markii ugu horeysay ka hadlay wararka la xiriira qafaalashada caruurta ee maalmihii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Burco. mas-uuliyiintan oo si wada jir ah si jaraa'id ugu qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay arrintani, waxaana ugu baaqeen bulshada reer Burco inay ka dheeraadaan wararka aan sal iyo raadka toona lahayn, isla markaana ay la soo xidhiidhaan laamaha amniga cidii ay ku arkaan faldambiyada noocaasi ah. ugu horeyn mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheer Cabdi Muuse, maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Hoday iyo xildhibaan Rashiid Faarax oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Burco. waxaan shirkan jaraa'id u qabanay oo maanta inoogu yeernay inaan dadka u bayaamino arrimo waayeedaba ku soo noqonayay media oo ka hadlayay gobolka Togdheer waliba u badnaa inkastoo dalkaba laga wada hadal hayay, dad baa la qaatay, dad baa la taabtay, waxyaalo caynkaay oo laga hadlayo aad u badnaayo dhagahayagana ku badnaa media-hana aad ugu soo noqonay. marka hore waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Burco ama Somaliland inaanan horta marka hore ummadda aan la khalkhal gelinin oo aanan dadka aan la khalkhal gelin caruuraha aanan loo diidin iskuuladooda, waxbarashadooda, ciyaartooda oo aanan waran jirin lagu maaweelin baan horta marka hore waan ka digaynaa in cabsidan badan ee dadka lagu abuurayo ee baqdinta badan ee lagu abuurayo caruurta ee dad ay ceshadeen inay guriyahooda ka soo saaraan caruurtooda ay kala baqeen inaanay jirin baan u sheegnaa dadka. haddana dadweynaha waxaan u sheegaynaa haddii ay arkaan wax sugan oo warkan la sheegaya ay arkaan intaanan idaacad iyo meel la istaagin inay hay'adaha amniga ee ku shaqada leh ay la soo xidhiidhaan. labaadaan ka hadlayna waxa weeyaan hudheelada, dadka hudheelada leh waxaan uga digaynaa dadka hudheeladooda galaya ee seexanaya inaanay lacagtuun ka qaadin inay la socdaan amnigooga oo dadka la weydiiyo qofka hudheelka seexanaya la weydiiyo sharcigiisa. waxa jira iyagana guriyo waaweyn oo magaalada laga dhiso oo aanan dad ku jirin oo waliba kooraha magaalada meelaha cidhifyada laga dhiso waashmaana ilaaliyaan kuwa naftooda inay dadka guriyaha leh waashmaano ayna lacag ku siinin inay iyaguna ay la socdaan gurigooga cidda u ilaalinaysa cidda soo galaysa in la ogaado. waxaanu seedin sheegaynaa wax kasta oo la dareemo ama hawl kasta oo timaada cid baa ka faa'iideysata ama boonboonisa ama meel aan arrintu gaarsiisa. waxa leenahay waryaan la gaarsiinin meel aan arrintaasi gaarsiisnay. waxaan maqlayn in leeyahay caruurtii iskuulkii tagi mayso haddaanu halkaa ay maraan caruurtii waa la qaadanaya hormay gaadhin heerka ama mushkiladdu heerka ma gaarsiisna caruurtooda iskuulka way tagi kartaa ciyaartooduna waa u fasax. hawshii laynoo sheegay ama bulshadu ay ka hadlaysayna baaritaan baa lagu hayaa ilaa ay hadda wax gacanta cad oo lagu hayaana oo ummadda loo soo hordhigana ma jiraan siduu inoo sheegay taliyaha qaybtu. waxaa nasiib darro ah in ummaddii iminka bulshadii khalkhal lagu riday inay caruur iskuulka tagi waayeen inay qaarsasayaan. iminka waxay naloo sheegayaan in baabuur lagu guranayo dad lasoo suuxinayo lasoo celinayo halkii lagu soo tuurayo. marka aad qofka aragtaan fadlan saldhiga keen. saldhiguna wuxuu u gudbinayaa goobta caafimaadka. waxaa laga hubinayaa inuu qofkani suuxsan yahay iyana suuxsanayn. waxaa la hubinayaa wixii sidee wuxuu ahaa sida aynu wada shaqayno magaaladan khalkhalkaan ka dayno hadday caasimadda tahay hadday gobolada tahayba. haddaba mar uu weydiiyey TV-ga caalamiga Saab taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheer sida ay u arkaan arrintani ayaa wuxuu ku jawaabay taliyuhu sida tan: day jirto wax baan u arkaa hawlahan ka socda magaalada ee la sheegayo ee warbaahintu baahisay ma waxaad leedihiin waxba kama jiraan, waa been abuur aan raad lahayn. waxaan ku sheegaynaa annagu odhan mayno cidda warkaa haysay dadkii weynaha sheegayay cid annaga warkaa noo keentay oo cad oon taabanayna ma jiraan. ninka hayaay baadhis baan ku wadnaa hanoo yimaadaan wax information ay noo hayaan. annagu odhan mayno warkaasi wuu jiraa waana been odhan mayno. taliya saaka salaadii subax masaajidada inta badan magaalada Burco waxa laga hadlay arrintaas waa meesha culimada iyo ummadda ku wada tukanaysay. miyaa la oran karin arrintan oo wax jira oo ka taagan magaalada maadaama masaajidadii salaadii subax laga qaylinay oo dadku ka cabanayeen ma waxa la oran karaa waa been masaajidada waxay sheegayaan. sheekha ka hadlaya arrintaas warkaas uu qumbu maqlaan aaminsanay
waxa isagu life u dul istaagay dee ma jiro hadduuna warkaa suuqa meediyaha iyo meelaha la gelinayo hadduunan maqlin annagoo odhan mayno wuu dul istaagay hadduu dul istaagay waxbuu ka qaban lahaa taliya ma la odhan karaa hay-adaha amniga ee gobolka togdheer ama magaalada burco markay ku guuldaraysteen inay arrintaa wax ka qabtaan waxay keeneen inaad istifaacdaan oo tirahdaan waxba ma jiraan arrintaa ma la odhan karaa waxa laala wax ka jira ma jiraan haddaad adu hayso wax formation oo sugan loo keenkayso waxaa idinka qorshaysan inaad ku qabataan maadaama magaaladii oo dhan arrintaasi gashay dadkii cabanayo baqanayo cabsigi jirto aan la soconayn caruurtii sidii ariga la raacayo maxaa boolis ahaan ama maamul ahaan idinka qorshaysan inaad arrintaa kaga hortagtaan wax allaale wax cabsiyahoo la muujin karaa oo dadku ay cabsadaan ma jirtaan leenahay yaa baqdinta la iska daayo howlahan kale ee waxaan la luulayaa la iska daayo maxaad ugu damaanad qaadaysaa war annaga u damaanad amnigiya annaga u damaanad qaadayna cabsi maanta magaalada caruurta iskuulka looga joojiyaa ma jiro cabsi maanta ay ciyaarku u ciyaari waayeen garoonka u tagi waayaan ma jirto wixii hawsha ku saabsan annaga amnigii hood taagan oo gacan qaabo ballan qaadayna waa cabdisamed axmed yuusuf saab t v magaalada burco